maqaayadda jawi kafay oo laga heli karo qaybaha cunnada macmacaanka kuwa fudud iyo kafayga isla markaana si casri ah loo qalabeeyay ayaa laga hirgeliyay degmada Xamarweyne waxaana ay ku taallaa dhabarka dambe xarunta gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho daafurka maqaayadda waxa ka qayb galay siyaasiyiin odayaasha dhaqanka iyo qaybaha bulshada waxaana maqaayadda suuro geliyay muwaadiniin Soomaaliyeed oo dalka dib ugu soo laabtay dadka ka qayb galay furitaanka maqaayadda jawi kafay ayaa sheegay in hirgelinteeda ku soo aaday waqti loo baahnaa waxaana ay ka qaybgalayaashu sheegeen inay qayb ka tahay bilicda iyo horumarka magaalada kafee kaliya ma aha ma macaan oo la socdaa waa caruurtu waxay jecel yihiin jalaata la socoto waxaan noo furay walaalkeen liibaan maxamed uu ku reelaasiyo waa nuurkii ifkii magaalada Xamarweyne hadduu shidan tahay insha Allah taala shaki kuma jiro jawi kafee adigoo qamshuucsan ama farxadaada kala dhimantay haddii aad soo gashid adigoo qoslaaya in aad baxayso insha Allah waxaa ka shaqeeya adeegayaal iyo kariyayaal hawsha aqoon gaar ah u leh oo qaarkooda jaamacad ooga soo baxay maanta dareenkayga lama soo koobi karo jawi kafee waxa ka helay soo dhaweyn aad u fiican maanta markaan meesha waa meel aad u qurxoon habiya jawigeedu macaan yahay waxa loogu bixiyay jawi kafee waxaan leeyahay hambalyo soo dhawaada inaad qurxisaan magaaladiina inaad qurxisaan goobihii iyo meelihii aad ka soo jeedaan waxaan ku faraxsanahay dadka qurbaawiga ah inay soo laabtaan investment ku sameeyaan dalkooda sida hadda tiimkaanay sameeyeen oo kale maanta waxaan ku faraxsanahay in degmada Xamarweyne laga furo cafeteria caalami ah heerkiisa caalami uu yahay oo standardka caalamiga u dhisan loo qurxiyay ruuxantii waxay kamid tahay kaabayaasha dhaqaalaha dawladda way kamid tahay waxa ka soo galaya canshuur waxay kamid tahay bilicda magaalada dib u soo celinaysa marka ummadda Soomaaliyeed waxay u tahay hambalyo waxaan leenahay waa in la ogaadaa in maanta jawi kafee halkan lagu furay 24 saac ee meeshan furnaan doonto 24 hours waa maxamed cabduqaadir imaam oo kamid ah maamulayaasha maqaayadda jawi kafay ayaa sharaxaad ka bixiyay waxyaabaha laga heli karo waxaana uu sheegay in maqaayadda ay furan tahay habeen iyo maalin ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu bishaareynaa in maanta aan daahfurnay maqaayadda jawi kafay ku soo dhawaada gacmo furan maqaayadda waxay u shaqeynaysaa system heer sare ah waxa laga hirgeliyay degmada Xamarweyne waxay furnaanaysaa maqaayadda from morning ilaa iyo habeenkii si service fiican aan diyaar u nahay wax walba insha Allah waxa kamid ah maqaayadda waxay sameynaysaa cafe cappuccino iyo pastry iyo light food Abdi Aziz Okay TV Universal magaalada Muqdisho